kulan wacan wanaagsan dhammaantiin masaaxiib ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka aan xilliga idin hayno. maanta waxaa isdiiwaan geliyey ama shahaadada xildhibaannimo ee saxda ah qaatay xildhibaanadii ugu badnaa oo ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. lafta gareen wuxuu waayay xubno badan maanta ayay ka soo muuqdeen xarunta guddiga fiid warar ayaan idinkaga haynaa iyadoo sidoo kale guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ugu baaqay xildhibaanada kale ee Koonfur Galbeed inay isdiiwaan geliyaan oo ay shahaadada xildhibaannimo qaataan. qodobada kale aan idin haynana waxaa ka mid ah waa kuma murashaxa guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ee heli kara taageerada Axmed Madoobe iyo Dani. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya maanta wuxuu shir guddoomiye kulan looga hadlayay sidii loogu gurman lahaa dadka Soomaaliyeed ee ku hantay beel Hargeysa. waxa uu fasaxay lacag ka badan 12 milyan oo dollar oo ay dawladda dhexe ee Soomaaliya sanado ka hor ay ka xayirtay Somaliland. qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idin haynaa ee u diyaar garooba saaxiibayaal. markale kula wanaagsan saaxiibayaal waxaan ku bilaabayaa maanta magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta guddiga fiid waxaa iska diiwaan geliyey oo shahaadada saxda ah ee xildhibaannimo qaatay in ka badan 50 xildhibaano. waa tiradii ugu badneed markii loo eego shalay. maalmaha soo socdana sidan oo kale ayay diiwaangelintu u socon doontaa. warbixintan ayaan ku eegaynaa sida ay maanta ahayd xaaladda iyo isdiiwaangelinta ama qaadashada shahaadada ee xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo kuwa aqalka sare. guddiga doorashada ee heer federaal ayaa maalintii labaad wada shahaadasiinta xubnaha labada gole ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya, taasoo shala ka bilaabatay xarunta guddiga ee Hotel Airport oo ku dhex yaalla garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde. shalay waxaa shahaadada qaatay in ka badan 50 xubnood oo labada gole ah, laakiin waxaa maanta la filayaa inay qaataan xubnihii ugu badnaa ee baarlamaanka Soomaaliya. guddoomiyihii hore ee baarlamaankii sagaalaad ee Soomaaliya, haddana ah murashaxa guddoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe iyo Shariif Maxamed Cabdalla ayaa maanta qaatay shahaadada xildhibaannimo ee baarlamaanka Soomaaliya. Sheekh Aadan Madoobe oo ka tirsan madaxda xisbiga Himilo Qaran iyo Shariif Maxamed Cabdalla waa laba xildhibaan oo lagu doorto Koonfur Galbeed. waxay noqdeen xubnihii ugu horreeyay ee shahaadada qaata kana soo jeeda maamulkaas. sidoo kale waa raggii ugu horreeyay ee ku dhaca inay iska diidaan amarka hogaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed. tani ayaa dharbaaxa kulal ku ah lafta gareen iyo kooxda Villa Soomaaliya oo maalmihii la soo dhaafay rajo weyn ka qabay in ay hor istaagaan shahaadasiinta xildhibaanada baarlamaanka. Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo saaka uun dalka dib ugu soo laabtay ayaa farriin u diray xubnaha kale ee ka soo jeeda Koonfur Galbeed, iyadoo la filaya in go'aankaas mid la mid ah ay maanta qaataan xildhibaano kale. sida ay noo sheegeen dad xoogaal ah, waxaa maanta Muqdisho ku soo wajahan xildhibaano kale oo ka tirsan baarlamaanka dooran ee Soomaaliya, kuwaasoo safarro ugu maqnaa qaybo ka mida dalka iyo sidoo kale dibadda. xubnahan oo aan la cayimin tiradooda ayaa la sheegay inay noqon doonaan xubnihii iyo nambarkii ugu badnaa ee shahaadada la siiyo. madaxweynayaasha maamulada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle hore ayay u diideen shaqada socota ee guddiga doorashada, iyagoo la saftay oo taageero u muujiyey Fahadii Farmaajo. laakiin waxay awoodi la'yihiin inay go'aankooda ku qanciyaan baarlamaanka Soomaaliya ee laga soo doortay deegaan doorashada maamuladaasi. wararka aan maanta ka helayno xildhibaanada Koonfur Galbeed qaarkood ayaa sheegaya in xubno kale oo ka mid ah ay maanta qaadan doonaan shahaadada xildhibaannimo oo ay bixiyaan guddiga doorashada ee heer federaal si ay u helaan aqoonsiga golaha shacabka iyo kan aqalka sare iyo sidoo kale dhammaan xuquuqda ay ku leeyihiin baarlamaanka Soomaaliya. hogaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa weli wada cadaadiska uu saaraya xildhibaanadii uu soo saartay, laakiin waxay u eg tahay inaysan dhammaantood u hoggaansami doonin ama ay ugu yaraan shahaadada qaadan doonaan siduu maanta sameeyey Shariif Cabdalla iyo Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe. xildhibaanada lagu magacaabo kudladda hay'adda NIS ayaa ah kuwa keliya ee aan qaadan doonin shahaadada sida ay noo sheegeen ilwareedyo ka agdhow ilaa arrintan laga xalliyo. xubnahan oo tiradooda lagu qiyaaso 40 ilaa 50 xubnood ayaa ka soo galay maamul goboleedyada Hirshabeelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo ah halka ugu badan oo ay ka soo baxeen. waxaana la sheegayaa inay yihiin kuwo isku xiran oo ka amar qaata madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin. agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin waxa uu ku dhex jiraa xaalad adag. 5 sano kadib ayuu wajahayaa jahawareer adag iyo xaalad culus oo u gaar ah. dadka dursa arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa qaba in markan ay adag tahay sida uga dhex dabaasho xaaladda uu wajahayo Fahad Yaasiin. guddiga doorashada ee fiid iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Roble ayaa dhaqan geliyey jadwalkii ugu dambeeyey ee la soo saaray, iyadoo aysan waxba u dhimin
go'aanadii maamulada Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Waxaa dhici karta in kooxda Villa Soomaaliya ay beddelaan qorshahooda maadaama aysan natiijo fiican ka keenin go'aanadii madaxweynayaasha Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle, isla markaana ay xildhibaanada qaarkood ka goosteen kuwa kalena ay ku dhow yihiin inay ka dhaqaaqaan garabkooda. Wakiilada beesha caalamka ayaa la sheegay inay ku qanacsan yihiin shaqada guddiga doorashada ee shahaadasiinta iyo dhaarinta baarlamaanka. Taasi waxay keentay inaan loo hakanin warqadihii ka soo kala baxay maamulada Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasin waxay noqon kartaa tallaabada tan xigta oo ay qaadi doonaan mar haddii uu fashilmay qorshihii hore. Waa su'aasha ugu badan oo ay isweydiinayaan dadka Soomaaliyeed. weli waxaan ku guda jirnaa wararkeennii doorashada Soomaaliya ayaa meel gabagaba ah marayso tan golaha shacabka weeyaane halka doorashada aqalka saran ay soo dhamaatay. Kadib waxaa la guda geli doonaa doorashada guddoonka baarlamaanka iyo madaxtooyada. Murashaxiin ayaa isu soo taagaya. Waxaa jira hal murashax oo Koonfur Galbeed asal ahaan ka soo jeeda laakiin kursigiisa uu yeelay Jubbaland. waqti badan ayuu isku dayay lafta gareen inuusan soo bixin murashaxaas oo damac kaga jiro gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaa la aaminsan yahay inuu yahay ninka kaliya ah ee heli kara taageerada Axmed Madoobe iyo Dani. Warbixintan ayaan ku eegaynaa. Soomaaliya waxaa ka socota doorashada baarlamaanka 11aad ee dalka oo maraysa meel gabagaba ah. Taasi waxay sababtay inay soo ifbaxaan murashaxiinta u taagan guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Ilaa hadda waxaa ku dhawaaqay dhowr xildhibaan oo dhammaantood ka soo jeeda Koonfur Galbeed, marka laga reebo hal murashax oo ka mid ah xildhibaanada laga soo doortay deegaanada maamulka Jubbaland, kaasi oo sheegay inuu yahay murashax u taagan gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Sidoo kale waxaa jira xildhibaano kale oo isu soo taagay xilka gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Sanadkan tartanka waa mid adag, waxayna heli doonaan taageero xoog leh shakhsiyaadka u tartamaya guddoonka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, kuwaasoo ku xirnaan doona murashaxiin iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada qaarkood. Maamulada Jubbaland iyo Puntland oo isbahaysi ah ilaa hadda ma caddo murashaxa ay wataan. Hase yeeshee waxaa la sheegayaa in ay suurtagal tahay in ay taageero u muujiyaan Injineer Saadiq Cabdullaahi Cabdi oo ah xildhibaan iyo siyaasi ka soo jeeda qoys caan ka ah gudaha Soomaaliya, gaar ahaan ciidamada booliiska iyo hoggaanka siyaasadda. Injineer Saadiq Cabdullaahi waxaa dhala nin lagu magacaabo Korneyl Cabdullaahi Cabdi Xasan oo xilal kala duwan ka soo qabtay booliiska Soomaaliya intii ay jirtay dowladdii dhexe ee dalka. Sidoo kale wuxuu qayb ka ahaa dadkii ka qayb qaatay xorriyaddii halganka. Aabihiis waxa uu soo noqday taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka Bokool iyo macallin wax ka dhiga Jenaraal Kaahiye. Gudaha Soomaaliya sidoo kale wuxuu aabihiis ka soo qabtay xilal ciidan iyo kuwa siyaasadeed. Hogaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa waqti badan ku bixiyey in xildhibaan Saadiq uusan soo gelin baarlamaanka Soomaaliya. Waxauna safarkiisii Kismaayo dhiggiisa Axmed Madoobe kala hadlay in aan la dooran oo aan la fududaynin doorashada Injineer Saadiq oo ay Laftagareen isku deegaan ka soo jeedaan si uusan ugu tartamin guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Laakiin dadaalkaas kuma guulaysanin hogaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed. Dad badan waxay aaminsan yihiin sababtuu Axmed Madoobe ugu reebi waaye tartanka baarlamaanka ama uu ciriiri u gelin waaye in ay tahay in isaga iyo Dani ay qorsheynayaan in la taageero injineerka. Hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ninkan soo saartay iyo Siciid Cabdullaahi Dani waxaa la rumaysan yahay inay dhisi doonaan oo ay dhaqaale badan ku bixi doonaan. Waxaa kaloo la sheegayaa inuu heli karo taageerada xildhibaano ka soo jeeda Koonfur Galbeed, Jubbaland oo laga soo doortay iyo Puntland, maadaama uu siyaasadda Soomaaliya ku dhex jiro ilaa dowladdii Carte. Wuxuu ka mid yahay siyaasiyiinta dhowrka toddobaad ee lasoo dhaafay kulamada iyo abaabulka ka wada magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya. Halkaasi waxay isku arkeen xildhibaano ka mid ah baarlamaanka cusub ee dalka, madaxda maamul goboleedyada qaarkood iyo murashaxiin madaxweyne. Madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland waxaa la sheegayaa in sanadkan ay isbahaysi ka yihiin doorashada Soomaaliya. Sidoo kale mucaaradka ayaa dhankooda wada dadaal badan ay ku dhisayaan guddoon baarlamaan oo labada aqal ah si ay saameyn ugu dhex yeeshaan doorashada. Tartanka ugu horreeya ee guddoonnada golaha shacabka iyo kan aqalka sare waxay tusaale iyo fure u noqon doonaan tartanka madaxweynaha Soomaaliya. Waa meesha ay murashaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ku ogaan karaan cilladda haysata, codadka ay ku tashan karaan iyo meelaha gaabiska oo ka jira ee u baahan in la saxo.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Roble maanta wuxuu magaalada Muqdisho kulan kula qaatay xubno ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed waxa uu ra-iisul wasaaruhu kala hadlay sidii loo caawin lahaa dadka Soomaaliyeed oo ay musiibadii darneed dhaqaale la'aanta ka soo wajahday ee Soomaaliland gaar ahaan dabkii ka kacay magaalada Hargeysa. Sidoo kale waxa uu fasaxay lacag ka badan 12 milyan oo dollar oo dowladda dhexe ee Soomaaliya sanadkii 2019 ay ka xayirtay lacagtaas oo ah mid deeq dibadda ah oo loogu talagalay mashaariic Soomaaliland laga fuliyo. ra-iisul wasaaraha ayaa hadalkan kooban ka jeediyay maanta xafiiskiisa kulankii ka dhacay. guud ahaan wararkii Soomaaliya kuwoodii ugu waaweynaa waa nageynta ee saaxiibayaal nabadgelyo.